Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaal ku soo dhawaada wararka ciyaaraha Bulsho Sports TV. Qodobada idinkaga heyno waxaa ka mid ah PSG ayaa mar kale u dhaqaaqday saxiixa Rafael Varane. Man City ayaa fasaxi karta Gabriel Jesus. Man City ayaa 100 milyan kula soo wareegaysa Keane. Athletic Madrid ayaa xiiseynaysa Insigne. Real ayaa ceersanaysa Gimenez bishaan. Intaasi waxay noo hayeen qodobadii wararka ciyaaraha. Haatan ku soo dhawaada isagoo faahfaahsan. PSG ayaa mar kale u dhaqaaqday saxiixa Rafael Varane. kooxda PSG ayaa u dhaqaaqday saxiixa daafaca kooxda Real Madrid ee Rafael Varane. Daafaca dhexe ayaa hal sano uga harsan tahay qandaraaskiisa Real Madrid. Waxa uu qayb muhiim ka ahaa Los Blancos xilli ciyaareedkan, inkastoo ay ku guuldareysteen inay daafacaan horyaalkooda. Si kastaba ha noqotee, weli ma uusan saxiixin heshiis cusub kadib markii uu diiday 2 sano oo dalab ah. Real Madrid ayaa doonaysa inay iska iibso 28 jirkan xagaagan, iyadoo PSG ay tahay kooxdii ugu dambeysay ee adeegiisa shaacisay, sida ay qortay marka. Wakiilka Varane ayaa sidoo kale qarka u saaran inay la hadlaan Manchester United, iyadoo loolanka loogu jiro saxiixiisa uu sii xoogeysanayo, iyadoo xiddigan uusan ku faraxsanayn Real. Rafael Varane ayaa shakhsiyan baraba inuu faarujiyo kooxda xilli ciyaareedkan. Man City ayaa fasaxi karta Gabriel Jesus. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Cabdiraxmaan Maanka. Manchester City ayaa diyaar u ah inay u soo bandhigto weeraryahankeeda Gabriel Jesus, qayb ka mid ah beddelka xiddiga Tottenham Hotspur ee Harry Kane. Kabtanka xulka qaranka Ingiriiska ayaa lagu soo waramayaa inuu u sheegay kooxdiisa bilowgii xagaagan inuu doonayo inuu u wareego mid ka mid ah kooxaha doonayaan saxiixiisa waqtigan. Sida laga soo xigtay The Times, Manchester City ayaa diyaar u ah inay u soo bandhigto Gabriel Jesus heshiis kasta oo ay Harry Kane ku keeni karaan garoonkooda. Arrinta ayaa laga yaabaa inay tahay xiisaha uu qabo ciyaaryahanka reer Brazil inuu ku biiro Tottenham Hotspur, maadaama aysan ciyaarin tartanka UEFA Champions League xilli ciyaareedkan soo socda. Tottenham ayaa laga yaabaa inay rabto heshiis toos ah oo lacag ah dalabka xiddiga Gabriel Jesus dhamaadka bishan. Man City ayaa 100 milyan kula soo wareegaysa Keane. Manchester City ayaa qarka u saaran inay xoojiso xiisaha ay u qabaan Harry Kane, iyadoo kooxda haysata horyaalka Premier League la filayo inay si rasmi ah ugu dhaqaaqdo weeraryahanka Tottenham. Gool ayaa laga soo xigtay xubno ka tirsan kooxda in Manchester City aysan weli dalab rasmi ah ka gudbin, iyadoo ay jiraan warar sheegaya in 100 milyan ay ku dalbanayso kooxda. Laakiin 27 jirkan ayaa ah bartilmaameedka ugu sareeya ee Manchester City xagaagan ah, iyadoo Pep Guardiola uu doonayo inuu ku daro ciyaaryahanka reer England. Kooxda ku guuleysatay Premier League isla markaana gaartay finaalka Champions League. Athletic Madrid ayaa xiiseynaysa Insigne. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xasan Cumar. weeraryahanka Napoli Lorenzo Insigne ayaa xiiseynaysa Atletico Madrid sida laga soo xigtay Mondo Deportivo. Maamulaha kooxda Atletico Madrid Diego Simeone ayaa u sii jeestay 30 jirkan kadib markii uu ka helay kooxda Udinese xiddiga Rodrigo de Paul. Lorenzo Insigne ayaa hal sano uga hartay qandaraaskiisii kooxda Napoli, balse haatan waxa uu haystaa jaanis uu ku dhaqaaqi karo kooxda xilligan lala xiriirinayo Atletico Madrid. Lorenzo Insigne ayaa kooxdiisa u dhaliyay 19 gool 35 kulan oo uu ka soo muuqday horyaalka Serie A xilli ciyaareedkii hore. Real ayaa ceersanaysa Gimenez bishaan. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xuseen Cumar. Real Madrid ayaa safka ugu jirta Jose Gimenez si ay ugu buuxiso booska uu ka tagay Sergio Ramos. Blancos ayaa diyaar u ah inay weerar ku qaado kooxda deriskeeda Atletico Madrid si ay u hesho difaaca dhexe ee Gimenez. Maamulka kooxda Real Madrid ayaa isbuucan rajaynaysa inay soo afjaraan dalabka xiddigan. Tan iyo markii uu kooxda ka tagay kabitaano Sergio Ramos, kooxda waxa soo wajahday cabsi fara badan waqtigan, balse hadda laacibkan waxay u arkaan inuu booskan ka soo bixi karo haddii ay saxiixiisa ku guuleystaan bishan. Gimenez ayaa kooxdiisa Atletico Madrid wuxuu ku biiray sanadkii 2013 waxuuna heshiiskiisa ka dhici doonaa 30 bisha Juun 2023.
AC Milan ayaa heshiis joogto ah ku rabto Brahim Diaz. Kooxda AC Milan ayaa wadahadalo kula jirta Real Madrid si ay dib ula soo saxiixato xiddiga khadka dhexe ee Brahim Diaz xilli ciyaareedka cusub. Calcio Mercato ayaa sheegaysa in labada naadi ay ku dhowdahay heshiis ku saabsan qaab amaah cusub. Tababaraha Real Madrid Carlo Ancelotti ayaa niyadda u qaboojiyay agaasimaha Milan Paolo Maldini intii ay ku socdeen wadahadalo dhanka taleefanka ah oo ku saabsan Diaz in loo ogolaado in uu u dhaqaaqo AC Milan. Labada naadi ayaa isku raacay sharciga kala iibsiga taasoo noqon doonta amaah ikhtiyaar u leh in la iibsado. Milan ayaa doonaysa dooqa joogtada ah oo ah in ay kula soo wareegaan qiimo dhan 20 milyan iyadoo Real Madrid ay ku adkeysanayso dhankeeda qiimo 25 milyan. intaasi waxaa inoo ekaa wararkeeni ciyaaraha ee Bulsho Sports TV waa anigoo ah Qamar Maxamed Cumar sidaas nabadgelyo.